16 bishii Juun ayay ahayd markii lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland wadahadal u dhaxeeya Khatumo iyo Somaliland iyadoo laga soo saaray 5 qodob oo dhextaal u noqonaya wadahadalkaasi. Waxgarad iyo odayaasha gobolka Sool oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Laascaanood ayaa ku taageeray wadahadalka Khatumo iyo Somaliland isla markaana ayday heshiiskii lagu gaaray magaalada Hargeysa. Waxaan kaloo soo dhaweynayaa wadahadalka Somaliland iyo Khatumo ay ku galeen magaalada madaxda Hargeysa. shirka oo ay labadaas maamul wada galeen oo ay ku heshiiyeen baan soo dhaweynaya si aad kal iyo laab leh baan u soo dhaweynaya halkan isugu nimi annagoo beelweynta Khatumo sool iyo sanaag iyo buuhoodlaba ka kooban in aanu taageero buuxda u muujino wada hadalkii soo socday ka bilaabmay Addis Ababa Djibouti ku xigay Hargeysa ku xigtay burcana hadeer fooda inagu soo haysa bisha 10keeda Juulaay baan sugu mug iyo miisaan u soo dhaweynana nabadda iyo shirka iyo wada hadalka dadka aynu dariska nahay ummadda Somaliland hadaynu Khatumanahay ninka diidan isaga cirka roobka og annagu waxaanu taageersanahay hadaanu nahay Cuqaasha iyo odayaasha iyo isimada waxaanu taageersanahay shirka burca ka dhacaya 4 meelood hore Caynaba Addis Ababa Djibouti Hargeysa 4 meelood hore shirka ka dhacaya kan maanta burca ka dhacaya waa taageersanahay 100% waxa meesha la isku yimid la soo dhaweeyo shirka mudooyinka soo socday aan wali heshiis buuxa laga gaarin say aniga ila muuqato wali heshiis buuxa laga ma gaarin oo lama soo gabagabeyn heshiiska buuxa waxba la kala saxdo la kala qaata shirka soo socda burco iyo kuwii hore ee ka dhacay Hargeysa iyo Djibouti Addis Ababa soo dhaweeyeen kan damar waa soo dhaweeyeen kuwa soo socda soo dhaweeyeen ka maamulka Khatumo iyo Somaliland ay ku galeen magaalada madaxda Hargeysa laguna ballamay in wareega dambe la isugu yimaado burco aad iyo aad baan u soo dhaweynayna una taageersana waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa inay ku guuleystaan xaqana ay asiibaan iyadoo aan cidna la dulmayn inay asiibaan sida xaqa ah ee ummadda dantu ugu jirto labada maamulba saasaanu ilaahay uga rajaynaynaa waxaanu kale oo xusaynaa inay qaataan isku soo wada duub oo muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa shacabka magaalada Laascaanood ee fikrado kala duwan ka dhiibanayeen wadahadallada Khatumo iyo Somaliland. Xamsi Xaaji Maxamuud Raadeeye RTN TV Laascaanood.